kalfadhigii koowaad ee golaha deegaanka degmada Booramo maanta ka qabsoomay dowladda hoose ee magaalada Booramo ayaa waxaa ka soo qayb galay 7 xildhibaan oo iyagu ka kala tirsan xisbiyada wadani iyo UCID oo si ah xildhibaanada cusub oo soo baxay golaha deegaanka ee degmada Booramo waxaana madashani goobjoog ah barasaabka gobolka Awdal xogeeyaha dowladda hoose ee degmada Booramo iyo waliba mas'uuliyiin kale ugu horeyn hadaba waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Tiimbar waxaanu sheegay oo maalin khamiis oo bishuna 17 tahay waxaynu u fadhiinayno halkan isugu nimi in lagu doorto maayarkii magaalada Boorame oo laga dhex dooranayay xildhibaanadii cusub ee la doortay ilaa saacadan oo koodu xagaxagaynaysa waxaynu u fadhinay xildhibaanaha habsaamay oo ilaa hadda sugaynay waxaan nasiib wanaaga kooramkii uu noo buuxsamay 7 xildhibaan baa fadhiya sidaa darteed waxaanu go'aansanay maadaama waqtiga laga soo 4 saacadood ka batay in aanu food galino ciidii musharaxa ee diyaara hawshaas anigu gobol ahaan goobjoog umaanu ka ahaanaynaa xildhibaanka ugu daada weyn ee aan musharaxayn baa halkan fadhiisanaya mintiskana waxa uu qaaday xogayaha dawladda hoose intayada kale goobjoog umaan ku ahaanaynaa hadaba waxa cod loo qaaday maayarka magaalada Booramo oo isku soo taagay Maxamed Axmed Warsame waxaana uu codeeyay 7 xildhibaan ee ka soo qayb galay kulankaasi waxaana shir gudoomiyay kulankani Maxamuud Sheekh Warsame oo isagu noqday xildhibaanka ugu daada weynaa ee aan tartamaynin waxaanu halkaasi ka sheegay maanta tahay bishu 17 Juun waxaynu qabsan doonaa doorashadii golaha deegaanka aan ku dooranay gudoomiyaha degmada Boorama iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaynu bilaabi doonaa doorashada marka hore waxaan weydiinayaa ayaa ah musharaxa u taagan jagada maayarnimo cid kale ma jirto waxa jagada u sharaxan Maxamed Axmed Warsame ayaana waxaan hadda u qaadi doonaa waanu codeyn doonaa musharaxa kaligii u taagan ayaa imisa ogol in uu noqdo Maxamed Axmed Warsame maayarka degmada Boorama hadda waxaanu sheegaynaa cidda ku guuleysatay jagada maayarnimo ee degmada Boorama waxa jooga fadhigan kal fadhigan 7 xildhibaan 7 waxay u codeeyeen Maxamed Axmed Warsame inuu noqdo maayarka degmada Boorama intiisa waxa isku soo taagay maayarka xigeenka magaalada Boorama Yaasiin Daheeye oo mane waxaana isaguna sidoo kale u codeeyay 7 xildhibaan sida uu mar kale sheegay gudoomiyaha shir gudoonka kal fadhigaasi iminkana waxaanu gali doonaa inaanu u codeyno gudoomiye ku-xigeenka degmada Boorama cidda u sharaxan ayaa u sharaxan jagadaasi waxa uu sharaxan Yaasiin Daheeye oo mane iska fadhiiso cid kale ma jirtaa hadda waynu codeyn doonaa maayar ku-xigeenka degmada Boorama imisa u ogol inuu noqdo Yaasiin Daheeye oo mane sidaas oo kale waxa ku guuleystay inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka degmada Boorama Yaasiin Daheeye oomane inuu noqdo maayar ku-xigeenka degmada Boorama hawshuna saasay ugu dhan tahay maanta laga bilaabo degmada Boorama waxa ka maayara Maxamed Axmed Warsame waanu ku hambalyeynaa oo ku bogaadinaynaa waxaan sidoo kale hambalyeynaa Yaasiin Daheeye oomane inuu ahaado maayar ku-xigeenka degmada Boorama intaasi kadib barasaabka gobolka Awdal ayaa u hambalyeeyay maayarka cusub ee magaalada Boorama mudane Maxamed Axmed Warsame iyo maayar ku-xigeenka magaalada Boorama Yaasiin Daheeye oomane waxaanu halkaasi ka sheegay in badan baynu foolanaynay hawshaas way naga dhamaatay waxaynu hambaleynaynaa maayarkeena cusub Maxamed Axmed waxaynu hambalyeynaa maayar ku-xigeenkeena Mr. Romane
waxaanu leenahay ilaahay ha idinku garab galo xilkaa la siiyey inta inaga maqan intiina joogtaba waxaan leeyahay guul iyo nasri baynu idin rajaynaynaa tawfiiq wanaagsan isku duubni iyo magaaladeennu inuu wada shaqeyno yaqiinteennu waxa weeye inaynu boorama wada shaqeyno insha allah inta yare maqnaanshiyaha xildhibaanadii kale naga maqnaana waxaanu leenahay idina raalaanu saa idinkaga nay weliba waanu idin soo dhaweynaynaa geestooda iyaguna waxaa dareenkooga cabiro warbaahinta la hadlay maayarka cusub ee magaalada Boorama Maxamed Axmed Warsame iyo waliba maayarka xigeenka magaalada Boorama Yaasiin Daheeye Oomane waxaanay halkaasi ka sheegeen kulley waxay noo taalo wada dheer insha Allah waxa lagu tartami doonaa horumarka annaguna waxaan rajaynaynaa inaanu noqono kuwii qaada sidii horumarkaasi ay noo gaari lahayn waxa 13 xildhibaanba waa walaalahay inta maqan iyo inta joogtaba shaqada noo taalaana waxa weeyaan sidii degmada Boorama ay nooga dhigi lahayn mid horumarta Boorama maanta uma baahna cid u abtirisa waxa u baahan tahay cid wax u qabata insha Allah waxaan rajaynaynaa in dadka la doortay ee 13 xildhibaan ay noqdaan dadkii wax u qaban lahaa waanad mahadsantihiin ducuun baan idinka baahanahay maanta xil baan na furay in Ilaahay xilka nagu asturo oo aanan noqonin kuwa dib u geysta degmada laakiin kuwa rajada soo celiyo ummadda aan noqono waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Boorama inay noo gartaan inaan xilkii aan isku soo taagnay iyaguna ay noogu doortaan inaan noqono hogaankii degmada Boorama waxa kaloon fariin u dirayaa saaxiibaday xildhibaanada naga maqan waan ogahay 13 xildhibaan ee soo baxay dad aad ugu kalsoonahay weey dad ay ka go'an tahay weey degmada in wax loo qabto iyagana waxaan filaynaa wada shaqayn fiican kulli waa niman haddii aqoon la yiraahdo haddii karti la yiraahdo aan filayo inay yihiin dad wax ku soo kordhin kara degmada Hussein Ataye Gafana Universal TV Boorama